marnaba inaan la isku dayin in qof la caburiyo in maamul la caburiyo in qof xaqiisa la qaato maalin walba hadaa shalay qaadan jirtay hadaa daraad qaadan jirtay maanta iska daa wixii hore waa tageen afallahu amma sallam deegaankan waa deegaan hodana waa deegaanka ugu ballaaran Soomaaliya ee la oran karo waxa ka baxda timir waa deegaanka ugu kalluunka badan Soomaaliya waa deegaanka ugu xabkaha badan Soomaaliya waa dhulkii Soomaaliya dawladii gacanka ahayd Maxamed Siyaad Barre Allah naxariiste waa meesha kaliya ee hard currency-ga waxa la yiraahdo lacagta adiga meesha ay ka soo gali jirtay weey السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhageystayaal kusoo dhawaada wareysi gaar ah aan la yeeshay afhayeenka maamul goboleedka Ras Casir State mudane Cabdirashiid Maxamed Yuusuf Maneeno ugu horeyntii waxaan weydiiyay inuu naga warramo xaaladda guud ee deegaamada Ras Casir bismillaahir rahmaanir rahiim wadhamaan dadka dhageysanaya daacadda iga dhageysanaya iyo inta garanaysa dhamaan waa salaamaya marka horeysa marka xiga xaaladuhu meel fiican ayay marayaan waxaana lagu jiraa barnaamijkii dardargelinta maamulka madaxweynuhu iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa waxa ay booqasho ku tageen laba maalin ka hor magaalada Durbo oo xuduudda maamulka meelaha uu ka taliyo ugu shishaysa waxay kaloo soo mareen degmada Murcanyo iyo gaar ahaan gobolka Boolimoog degmooyinkiisa kala duwan wafdi aan hogaaminayo oo ka koobma taliyaha ciidanka iyo taliyaha qaybta gobolka Binaa oo ku sugan gobolka Binaa ayaa waxaan tagay degmo kamid ah degmooyinka gobolka Binaa degmada Taageer iyo degmo tuulo la yiraahdo Waadi Khayr oo ku taala magaalada gobolka Xarunta oo ah ee la yiraahdo Baargaal meel adigu taqriiban 30 kilomitir u jirta si kastaba ha ahaatee xaaladdu hadda meel fiican ayay maraysaa waxa laga gudbay maamulkii hoos ka dhiska ahaa waxaana loo gudbay hadda maamulkii guud ee sare ee baarlamaankii iyo dhameystirkii dawladda inta ka dhinayd oo dadku uu noo irkaday oo anagoo ku shaqeynayna markasta wada tashiga iyo rabitaanka bulshada waxaad warbixin kooban naga siisaa safarka madaxweynaha uu ku joogo degmada Xaabo wararka qaar ayaa sheegaya in madaxweynaha uu u sii socdo baadiyaha deegaamada Boolimoog waxa uu aaday tuulooyinka ku xeeran degmooyinka Xaabo iyo degmada Murcanyo halkaas oo uu kula kulmay maanta waxgaradkii iyo odayaashii iyo awqaashii deegaankaas waxaana laga wada hadlayay sidii wax looga qaban lahaa bulshada iyo maamulka sidii ay mar labaad isaga kaashan lahaayeen horumarinta maamulka dambiyada dhaca sidii wax looga wada qaban lahaa sidii loo wada shaqeyn lahaa arrimahaas iyo ganacsiga iyo ururinta canshuuraha dardargelinta barnaamijka canshuuraha ayaa aad looga wada hadlay waa runta waa u tagay haddana waxa uu ku sugan yahay deegaamadaas Murcanyo iyo Xaabo u dhaxeeya oo tuulooyin aad fara badan waxa kamid ah tuulada Dhuxun waxa kamid ah tuulada Fusile waxa kamid ah iyo tuulooyin aad u fara badan xaqiiqdii Cabdirashiid sida aad sheegtaba adiga iyo wafdi aad hogaaminayso ayaa dhawaan ka ambabaxay degmada Baargaal kuwaas ku wajahnaa degmada Taageer iyo nawaaxigeeda waxay wararku sheegayaan in aad u kuurgalayseen khasaarihii ay dhawaan geysteen roobabkii ka da'ay deegaamadaasi marka warbixin kooban naga sii roobabka ka da'ay iyo khasaarihii ay geysteenba waa jiraan roobab aan aad u farbadnayn ayaa ku da'ay laakiin waxa jira toga la yiraahdo Jaceyl oo magaalada Taageer dhinaceeda mara hadda ka hor waxa maalmihii togaas waxa uu ku xiriiraa meel biyo shub ah oo aad u sareeya oo ilaa iyo waxay ka yimaadaan biyahaanu dhinaca waqooyi galbeed iyo Togdheer waxay la tageen gaari xamuul u siday oo ka yimid gobolka Puntland gobolka mid gobolka Bari oo degmada ay hareerteeda u soo socday degmooyinka kaleeto waxa ku dhintay 4 qof yani daadad soo rogmaday bay ahaayeen inkastoo roobabku raxmadu ay qabatay hal yeeshee waxa la oran karaa sidii dadku ma badna la oran karaa laakiin waa dhigay roobku boqolkiiba Cabdirashiid waxaad noo sheegtay inaad wadaan qorshe aad ku soo dhisaysaan
baarlamaanka uu yeelanayo maamulka Ras Casir State bal arintaas waxa naga siisaa warbixin kooban. Baarlamaanku waxa uu ku saleysan yahay habdegaameed waxa uu ku saleysan yahay dadka deegaanka degan todobada degmo ee uu ka koobmo maamul goboleedka Ras Casir State of Somalia maamul goboleedka Ras Casir of Somalia iyo labadiisa gobol iyadoo loo kala fiirinayo tirada dadka iyo waliba dadka deegaanka iyadoo marnaba aan laga tagin maamulkan maamul qabiil leeyahay maaha dadka deegaanka degan oo dhan ayaa ku wada jira iyagaana soo xulaya iyagaana rabitaankooda marka hore ku keenay iyagaana hadda aanu kala kaashanayna mar walba kaalintii ka dhinayd inay soo buuxiyaan. waa gartay mudane afhayeen masleedahay xulitaanka la soo xulayo xubnaha baarlamaanka ee maamulka Ras Casir State masleedahay waa arin lagu degdegay ma lagu degdegin dawladdu waxay ka dhisantaa waa golihii sharci dejinta golihii fulinta iyo golihii garsoorka labada qaab ee wax loo dhiso adduunkana waxa weeye in aad tuulo ka soo bilowdo degmo heer gobol councilka gobolka degmada marka dhisto ama golaha deegaanka degmada iyo golaha deegaanka gobolka ayaa haddana waxa loo gudbayaa golihii la oran jiray heer dejinta maamul goboleedka waxa loo gudbooyaa doorashadii gudoomiyaha baarlamaanka guddoonka baarlamaanka procedure-kiisa baa la maraya marka kadib ayaa madaxweynuhu haddana xaaladii lagu jiray laga baxaya madaxweynuhu uu hor imaanaya baarlamaanka halkaas doorasho ka dhacaysa markaas kadib madaxweynaha markii la doorto dawlad buu soo dhisaya waxa uu hor keenaya baarlamaanka waa la ansixinaya marka inta la ansixin kor waxa uu qaybinaya barnaamijkiisa national agenda wax la yiraahdo ajendihiisa iyo political program labada markii laga gudbo oo laga wada doodo oo cod la galiyo ayaa haddana waxa uu keenaya dawladdiisii oo dhisnad waana la ansixinaya ama waa la diidaya labada mid un bay noqonaysaa. waa gartay afhayeen maadaama soo xuleysaan baarlamaanka uu yeelanayo maamulka Ras Casir State waxaa laga maarmaan ah in lala tashado isimada iyo cuqaasha deegaanada Ras Casir marka ma jiraan xiriir aad la sameyseen isimada iyo nabadoonada deegaamadaasi. aad iyo aad waxaan ugu tagnay shalay degmooyinka gobolka Binaa uu ka kooban yahay kuwana waa la xiriirnay kuwana waa u tagnay degmooyinka aan u tagnay waxa kamid ah degmada Bargal waa joognayba oo xarunta maamul gobolka Binaa waxaan tagnay degmada la yiraahdo Taageer waxaanuna hadda la balansanahay oo maanta aan sugaynay inay noo yimaadaan duruufo jira awgood ay dib nooga dhaceen oo aan filaynay inay maalmaha soo socda noo yimaadaan degmada Muudiyah oo tashi badan baanu ku sameeynaa waxaanu aragnay oqaashi waxaan aragnay odayaashii iyo waxgaradkii bulshada qaybaheedii kala duwaneed waxaanu kala tashanay qaabkii aan ugu wanaagsaneyd oo aan u mari karno waana isla qaadanay runtii baa la oran karaa 100% waxa halkaas ka dhacday guul aan la filayn aad baana dadku noogu soo banaan baxeen wax naga hor yimaada runtii ma aan arag wax bagan yiraahdo mooyee. afhayeen markii aan dib ugu soo laabano xulitaanka baarlamaanka ee Ras Casir State baarlamaanka Ras Casir State ma waxa soo xuli doona isimada Ras Casir State mise waxa soo xuli doona madaxda iyo maamulka Ras Casir State. waa gaari doonta maamulka Ras Casir waqti ay doorasho dhacdo oo aan waxaan dadka u bisleenaynaa waa doorasho waxay ku dhici kartaa oo maamulku waxyaabaha uu maamulayo doorashooyinka kamid ah waxay ku dhici kartaa tirkoob in la sameeyo waxyaabo noocaas oo kale taa doorashooyinka dawladda hoose in la qabto waxay ku dhici kartaa ahzaab in la sameeyo miisaaniyad dawladeed in la sameeyo laakiin maadaama hadda ay tahay dhisme la doonayo in maamul goboleed la dhiso waxa aanu la tashanay odayaashii deegaanka ay mar kastaba lagama maarmo mudnaantooda leeyihiin kalsoonina waanu ku haysanaa waanu la tashanay hadda iyaga soo xulaya. waa gartay mudan Cabdirashiid arintan waa arin culus waa arin u baahan dhaqaale xoog leh soo xulitaanka baarlamaanka iyo dhisidiisaba marka masleedahay oo ku filantihiin dhaqaale ahaan mise waxa jira hay'ado idinka caawiya arimahan oo kale. wallahi hadda ma jiraan dhaqaale anaga dibadda nooga yimaada ama dhaqaale nooga yimaada hay'adaha caalamiga ah awal bad hadaan maamulnahay anaga maamulkayga miisaaniyad baan u sameeysanay waxaan ku tashanay waa deegaanka wax soo saarkiisa badda beeraha ilaahay kuma daraade xabkaha la dhoofiyo waxyaabaha la midka ah oo kaleeto deegaankana waa deegaan hodana waa deegaanka ugu ballaaran Soomaaliya ee la oran karo waxa ka baxda timir
waa deegaanka ugu kalluunka badan Soomaaliya waa deegaanka ugu xabkaha badan Soomaaliya waa dhulkii Soomaaliya dawladii gacanka ahayd Maxamed Siyaad Barre Allah naxariiste waa meesha kaliya ee hard currency-ga waxa la yiraahdo lacagta adiga meesha ay ka soo gali jirtay weey waxaan filayaa waxay haysataa kalsooni shacab waxaan hadda ku dhisannahayna waxa weeye waa shacabka waxa aalaaba kharashaadkayga bixiya deegaanka bixiya waa gartay marka taa macnaheedu waxa weeye deegaankiina waxaad ka bilowdeen cashuur ururin ba ka qaadeen cashuurtii waa bilaabatay meeshii la rabay runtii ma gaarin waa bilow laakiin waxa la oran karaa tijaabadii la qaaday intii laga filayay in ka badan baa soo baxday 200% runtii wararka naga soo gaaraya degmada Baargal waxay sheegayaan in maanta ciidamada ammaanka ay sameeyeen howlgallo ay ku soo qabteen baabuur iyo dad marka howlgalladaas noocaas maxay ahaayeen warbixin kooban naga sii hore waxaan uga soo gudubnay la dagaalankii Baradbadeedka haddana waxaanu qabanay maanta la dagaalanka Maandooriyaha waxaan qabanay in ka badan 25 kiilo cadad aan ku qiyaasnay xajmi wax leeg daroogada murjuwaanada la yiraahdo iyo 12 dhalo oo khamri ah oo baabuur lagu soo qariyay waxaanu haynaa gaarigii soo qaaday oo aanu qabanay waxaanu haynaa ganacsadihii watay ciidamada booliiska iyo khibrad isticmaalaya iyo aqoon dheer waxay ay heleen dadkii macaamiisha la lahaa oo tawsiic ama faafinta u qaabilsana in ay suuqgeynta u qaabilsana intaba waxaanu horkeeninaa sharciga waxaan dadweynaha hortooda aanu ku gubi doonaa maandooriyihii aanu soo qabanay barnaamijka iigu xiga kaas ee aanu rabno in aanu qabanno waxaa ka mid ah dardargelinta canshuuraha deegaanka gobolka Binna waa gartay afhayeen adoo ka faa'iideysanaya fursadan uu ku siiyay radio Raas Caseer maxaad u jeedinaysaa ummadda Soomaaliyeed ee hawada barta internetka kala socoto waxaan u jeedinayaa Soomaaliya waxay ahaan jirtay dawladda xoog weyn ciidamo badeed leh ciidan nooc walba leh waxay ahaan jirtay dawlad warshado leh waxay ahaan jirtay dawlad beerale waxay ahaan jirtay dawlad sharciyan askariyan maamul ahaan iyo military ahaan dawladaadu dhisan dawlad diblomaasiyad kula qaramada midoobay dawlad midowga Afrika iyo kule culays iyo nufuud kule dawlad jaamacadul carab nufuud kule iyo shirka islaamka meesha la yiraahdo waay burburtay waxa maanta lagu soo celin karaana waxay tahay run baa lagu soo celin karaa nidaamkii Soomaaliya waxa lagu soo celin karaa meesha Soomaaliya maanta ay taala waxa ka qaadi kartaan oran karaa dadka oo iska saara waxyaabaha ku jira waxa lagu soo celin karaa dadku inuu iska shado wax walbana inaan xabad lagu xallin karin waa Juba meesha la yiraahdo Suudaan maanta xorriyad bay qaadatay deegaanka Juba in ka badan 30 sano ay xabad u dayo ay dagaalamaysay ayaan oran karaa in ku dhowaan oran karaa maanta waa lagu kala nabdoon yahay horumarkooda maanta ka shaqeynayaan waxa lagu xallin karaa dhibaatada jirta kursi jacaylka jini Soomaaliya ku dhacay inay iska deysaan jeclaan lahaa waxaan Soomaaliya ku boorinayaa oo aan kula talinayaa nafteydana aan ku boorinayaa in miis la isugu yimaado oo wax lagu qaybsado marnaba inaan la isku dayin in qof la caburiyo in maamul la caburiyo in qof xaqiisa la qaato maalin walba hadaa shalay qaadan jirtay hadaa daraad qaadan jirtay maanta iska daa wixii hore waa tageen afallahu amma sal laakiin maanta qof walba oo Soomaaliya waxaan kula talinayaa waxa 5 la yiraahdo point 5 waxa la yiraahdo in loo guuro quality tayale oo aan maanta wax u dhiibana yaa maanta dibka Soomaaliya ka saari kara waana gaari doonaa baan leeyahay intay dhageysanaysa xilli cod bixin ah oo aan la dhihin hebel waa qurbo joog hebel waa qaxojoog hebel waa fulaan aan la dhihin ee maanta loogu codeyn doono qofka waxtarkiisa iyo tayadiisa dadka dibadaha joogana waxaan kala talinayaa Soomaaliya dibteeda inay ka qayb qaadan in Soomaaliya waxay tari karaan maanta dadka dhibaatooyinka ku jira ee dagaalada ku jira ee fatahaadaha ku jira ee abaaraha ku jira wixii ay u kari karaan inay u qabtaan baan ku boorinaya dhageystayaal waxaa intaasi inagu soo ekaaday wareysi gaar ah oo aan la yeeshay afhayeenka maamul goboleedka Raas Caseer State mudane Cabdirashiid Maxamed Yuusuf Maneeno oo ku sugan degmada Baargal ee gobolka Binna intaan ku kulmino wareysigan